Leave a thumbs up if you like any videos, then subscribe the channel and press the bell icon to watch more latest videos very faster. warqadna iga qoray aad baan u cambaareynayaa taasna waan ka hadli rabaa ninkiina ma ka ahaa ina ma ku xasan cabdiraxmaan cabdishakuur oo iscafiskii iyo magaranaysaa Soomaalidii heshiisay cuqdad ka sii qaaday oo dagaal ku jira sigana waan ka hadlayaa aad waxaan intaana gelin baan waxaan soo dhaweynayaa heshiiska dhaxmaray ragan saaxiibanahay waan soo dhaweynayaa oo doqbilowe ninkii soolo bidaar ahaa ninkii daahir calool ahaa daahir calasow labadaba aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa heshiiska ay wada galeen ceeb bay nagu ahayd inaad jalas kala noqotaan kala maseertaan isburbursataan isku dhaxaysaan social media ceeb bay nagu ahayd ummadda Soomaaliyeed yay ceeb ku ahayd marka waan soo dhaweynayaa heshiiskiina daahir iyo soolo caruurta daaya islaamaha daaya hayscaanina magaraysaa nin walba iyo fikirkiisa ha lagu ixtiraamo horna ha loo socdaadiyaan heshiiska asaga aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa dad baa ciiloon doono maxay dhihi doonaan maxay u heshiiyeen daahir iyo soolo maxay u heshiiyeen yay dhihi doonaan waa laba muwaadin oo Soomaali ah bayna ku rag waaweyn weeye inay baraha bulshada isku dhaxayaan anigu aad baan garaysaa arintaasi aan uga soo horjeeday sida aragteen baduqbilow dadka ma caayinta badan laakiin waxbaan dhaliilaa oo waxaan dhahaa siyaasaddu sidaa ma aha waa nooca baan dhahaa ma garaysaa marka sidaa dhaho dad bay dhibtaa oo dhibsanaya oo magaraysa aad u dhibsanay ma daahir calasow iyo soolo heshii waa naaneestooda weeyadi waa naaneestooda waa rag saaxiibadaya maasha Allah aniga wanaagooda iyo fiinaantooda yaa wax taraysiyo Soomaali taas sharaf ku yeelanaysa daahir guuliga niman ku leeyahay heshiiska iyo magaraysa wada hadalkeedin dhaxmar adiga saaxiibka halka ku soo afjara horna u socda Soomaaliya idin baahan oo magaraysa inay Soomaaliya hagaagto yaa magaraysaa oo aan ka shaqeeyno wanaageeda iyo fiinaanteeda yaa loo baahayaa anigu sidaad ogtiinba ma jeclin leescaayo waxa jeclaa ninkeenu kartidiisa raganimadiisa uu soo dhigto miiska kana sheekeeyo sida ay siyaasadda tahay asoo shakhsi aan ku xadgudbaynin qolana aan caaynin anigu taasaan aaminsanahay halka markay marayso dad baa ciiloon doono oo dhiban doono waa kuwa islaamaha dabaguro xaafadaha ka sheekeeyo caruurta ka sheekeeyo kuwaasa dhibaato u arki doono heshiiska labada muwaadin dhaxmaray waana bahdilan yihiin kuwaasi Soomaalina way bahdisha wayna sii bahdilmi doonaan aadiyad halka way heshiiska raggaan saaxiibanahay guuleysta idin leeyahay inaad reeyaan guuleysta oo caruurta daayo islaamaha daayo hor u socdo nin walba ninkii mucaaradkiisa ninkii muxaafidnimadiisa ha ku socdo aadiyad halka markay marayso ninkii Mustafa Cagjar horta ku shididii aan ku shidnay iyo arrintii siyaasadeed ee deegaanka Itoobiya ka taagneedeen annagu falanqeynay dad bay dhaawac ku noqotay dad baa waxay rabaan in wax walba la yiraahdo waa dahab jeebka gista qaata oo ku socdo la yiraahdo iskaga socdo anigu saamihi waxbaan analyze gareeyaa war sidan ma ahay sidan bay ku fiican tahay war kan nooma fiicnay kan waxa ka bedelo waa waxa aan activist u nahay weey ninkii Mustafa Cagjar wixii aan idinku iri halkan ay idin kala wadaagay iyo ku dhaqaaqay waxaan idinku iri laba mid inuu chicken noqdo oo la ogoleysiiyo waxa laga rabo oo heshiiska uu qaato oo adeer Ethiopia naxariis male waa laba wajiile inay magaraysaa ku socodsiiso iyo inuu intuu geesi iska dhigo oo yiraahdo aniga duqbilowna uu igu shiday waxa weeye qaadan maayo dadka aan cambaareeyay ee dhahayna waxa weeye maamulkan kama qayb galayaan aan dhahayna kala soo qayb galay lama shaqeynay iyo ku adkaysan doonaa wuu arkay inuu sii socdo wuu arkay Ethiopia inaysan xin heshiiskii buu qaatay asoo qoslayaad aragteen waxa weeyaan annagu haddaanu nahay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee u hadasha Soomaali meel walba ay joogto wanaageedaan jecelnahay ma jecelin in magacyo la isku sameeyo been la isugu soo dhuunto ummadda lagu takooro waxa sadahan jirtay waxan badahan jirtay lagu takooro dadka diidan baana Mustafa Cagjar ka qafiifi waxaan ku yiri waa ka qafiifi horba loo soconayaa adeer calanka wad Soomaalidaana mideeban ku yiri arrintaasi uu ka hoosbaxay la taliyaashiisu way ka hoosbaxeen waxay yiraahdeen waa heego hal la qabtay hal la xiriyo hawlo noocaas la yimaadeen aniguna dadkii diiday baan kamid ahaa dadka in la walaaleysiyo isku yimaadaan mid noqdaan dadka aaminsan banaha qasab bay ku noqotay ugu dambeyntii in fikirkii duqbilow iyo rag badan oo kaadiriina waxay aaminsanaayeen inuu qaato waana guuliga gobonimo laakiin hal khalad buu galay waana adeerkay waana tolnahay waana jifo hoose isla siinahay weey siyaasad ba ku kala duwanaanay
waxa uu wato iyo qorshaha iyo road mapka uu wataan anigu diiday waxa weeye waan analyze gareeyay fikirkaygan ku gorfeeyay laakiin Mustafa Cagjar inuu u isyasay aad buu isu yasay waxa la rabay inuu duqbilo warqada u soo qoro anigu yimaado dhawr duqbilo war waxaad anigu igu dhaliyayso waa gooni waxaad leedahay sax inaan saxo ii shagro dhahay ninkii way dacweeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ugu dacweeyay warqad buu iga qoray wuxuu yiri anigu dawladda uma shaqeeyo Mustafa waan runta ku sheego uma shaqeeyo dawladda Soomaaliya waxaan ahay muwaadin Soomaaliyeed dawladda jecel dawladda taageeranahay muwaadin waxaan ahay dawladda Soomaaliya taageero kama tirsani kabineetka Xasan muxuu ahaayeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kabinetkiisa kama tirsani waa ra'iisul wasaarehigi waana taageersanahay waana sii taageeri doonaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo waxaa ceeb kugu ah anoo in adeerka inaad ii timaado warqad aniga ii soo qorto iga dacwatood inaad anigu dawladda igu dacweyso dawladda haddaan rabo fikirkayga way dawladda Soomaaliya haddaan rabo waan taageerayaa haddaan rabana ma taageeray laakiin inaan taageero oo Soomaalinimada iyo wadaninimada iyo dalkanaga inuu dhismo waa waxaan shakhsiyan iga soo gaay weey mihi qof shaqaale oo dawladda Soomaaliya u shaqeeyo oo bayroolkeeda ku jiro oo magaraysaa ama shaqo laga fariisiinayo ama shaqo lagu soo daraya mihi ما هي أنا وأن هذا بكو عدي ويسوقرت وربحنتي رئيس الوزراء كنا وكا accept قريي وأنا أقول هاي هربان الله سعنيه واسيد الله يجبرته ويانيو هربان الله سعنيه مرنا قدال الله نقول ماي مرنا بدي مايسو إن قدال الله نقضه أو قدال سيفيرنو يشال يوحي دعي ماي وحاد نجا أننا هرؤوس عنه دولة نمط الصومالية دسنتو مير والباي الصومالي دقنتاينا برارية برواقع كنا ولا تايا نجا مصطفى عقدر halka waan kugu dhaliilayaad baan kugu dhaliilay waxay ahayd inaad ergada si toos aniga iigu soo dirto anoo duqbilowe oo aad tiraahdo war wiilka yarka hadaladiisu way kulul yihiin saameyn badan buu social media ku leeyahay bal tolow ama aniga hayla hadashiyo ama anigu hayla hadlo ama anigu si toos warqada aan ugu direehayd ma haynaad anigu inaan dawladda Soomaaliya khaladkaas ay idinka wada khaladka ayaa idinka wada dhaadhacsan war dawladdan anigu uma shaqeeyo والله وبالله وتالله مقع إلهي من كل نارتي ومشقية دولة الصومالية جاقنا يمسيس الدولة الصومالية أنا شقيس كوفا أنا شقيس البرف كاس يندحت هاقرأي تراقبا وتآديا أنا حمير وحانا هاي اكتفيستان هاي برتاكا الله هاي ما شاء الله رئيس الوزارة حسن علي خيري رئيس الوزارة هيقا رئيس الوزارة هو مدى الصومالية وان اكسبت قريي وانا اقبلي وانا كتاجير دونا وانا كتاجيرنا مصطفى هرسع قدال ونقون منه هرسع أو وناق ليمو أو فعنان ليمو مرنبا قدال ونقون منه مرنبا قدال لو نقون مايو وحي شالي دعي حالي دليبا كان نقوننا مدحوينها النقا والساس يوري هذه هل كان مركي مرسو مصطفى أنا وقلوب أنا أركا أنا داني وركا يقول دعويشد قلت هذه هلا يقبط النكا وحاوي أن قلوب بك هاي هذه قلوا وانسباه هذا الشيء إيه كاذب القف ماشي بلوغريه هو عاين موت هو عدبوي كل شيء سيال بلود بعلوش كوسه ودي حنون بي مرتي والله بي مرتي وحي مرتي دباتي مرتي way ku dhashay adiga wax qorayay halkaas ma garaysaay sagaal bil si caloosh ku waday ku foorotay ku dhashay ku korisay nin weyn baa tahay hooyad caayisa ha hooyo aan waxba ka galabsan maxaan hooyada haddaan xanaaqo oo hooyada damceenan caayo maxay ii soo kordhinaysaa jaahiliyo iskaga tag meesha waa ku baloogareynaya moogtaadiya halka markay marayso Mustafa ceeb bay kugu tahay in erga meel kale iga timid anigu ma garanaysaa la yiraahdo ka qafiif aad iyo aad baan ku cambaaraynaya dhimman laakiin hor baa loo soconaya hor ayaa loo soconaya ra'iisul wasaare guulayso Soomaaliyana ha guulaysato nabadda iyo nololna ha guulaysato aad iyo intaan halka ka bixin mawduucan ka bixin yaan ummadda Soomaaliyeed u cadeynaya aniga duqbilow kablo faarax walaalkiis macowkii ka yaraa Bashiir Ballaa mataana xasan guro saaxiibkiis war waa social media activist weey anigu dawladdaana wasiir kamihi agaasimana kamihi kamana shaqeeyo marka aan hadlayo ee wax gorfeenayo anigu sida ila tahay baan u gorfeeyaa aydiyada anigu markaas iga guuxiso yaan ummadda kula shaqeystaa aad marka Mustafa iyo dad badan oo ka dhaadhacsan Nairobi soo duqbilow وراني وحبا مقرس باشا خيرنا هقولشتو فرماجنا هقولشتو أنا تاجرو أنا يقصو قدرنا تاجر هذيات هل كاس مركي مرسو مصطفى هي دعوين مرتبط مرضم بهي دعوين أنا يقصو دعوة وحتى لا تقبلوا دعوة كايد
لكن أنا وهيقول دعوين وأنا حناق حتى أنت حناقه يعني كلام مع الفرماجي خير وكالي ولا أرتديك نفرك خير الفرماجي ميان إندي شقيه بيجي بس سوى نكرة ما بيجي بس ين ولا شقيه لكن wanaagga ay wadaan iyo fiicnaanta ay wadaan iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed ku soo kordhiyeen ayaa ku taageeraa oo wallahi oo billahi oo tallah been ma adiguna Mustafa wala imo wanaagkaas kala teen anigu dadka ciilin dadku ha tusin xintan kuwa meelaha joogo xintan waxa ana tusin hadda taa laga gudub la heshii hor ba loo soconaya xalay dhalay ba laga noqonayaa wixii dhacay hor loo soconaya ra'iisul wasaaradeed baan kugu taaganahay وانا كسبت قري وانا قاطي وانا هرب الله سعودي وحي صومال نمك كير مرنا ما كسبت قرين منه قادنا منه هرب الله سعودي ان شاء الله هدو الى هيران هالكا مركان مصطفى قتقو نكي إنا مكاها عبد الرحمن عبد الشكور لورنيي بدا الصوماليا قتي الدولة كينيا كقتي مركي لويديي لغو يري وزير محاد بدا الصوماليا وقلتي مركي لغو يري dhahay anigu warqadaha maana akhrinin ku dhex ceewoway ummadda Soomaaliyeed naanaysta u noqotay badagata la yiraahdo badagata la yiraahdo badda Soomaaliyeed gatay ku dhex ceebeysna ummadda Soomaaliyeed yaa wuxuu fadhiyay bartii uu madaxweynaha ka hadlayay Soomaaliya radiyallahu anhu mudane Maxamed Abdullaahi Farmaajo bartii uu ka hadlayay buu fadhiyay wuxuu madaxweynaha naga iyo cuqaashii isimadii iyo madaxdii karaameysneed ee Soomaaliya soo martay ee bartaa كاشجن إلا يسعفيه هرلو صعدو وحي دليله يا وحي مقرسها أفكار الله ماشي كتاجن إن أنتي ميس كله وذا فريستو الله وذا حليو وهرلو صعدو ولا يسكدايو شيء كالكال ولا يسكدايو إن صوماليا اللوجبية عدو جيد اللوجبية اللي يسكدايو أو ولاش الصوماليات يا قبلها الصوماليات الصومالي نماذج كوين تاي يعني كابلو قبرتها سورن آمسن إن يهرو السعودان ويجوا يسوي مادان oo gaal soo dhaxgelin oo heshiiyaan oo la yiraahdo war maxay naga khaldan xageen u soconnaa hebelow kada hebelow waad khaldan tahay sida wax uma fiicnee sidan bay la fiicnee sawad la oranayo Mustafa muxuu anik Mustafiyaan orniki ina balkiina maka aha ee la oranayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur la oranayay waxa weeye maxaan ku tilmaami karaa waa siyaasi Soomaaliyeed ma caayi karo hadal khaldan bartan miiriyaha uma soo mari karo laakiin waa fashilmay وافشلمي صومالي وسوسو دواanayso intii idaacada yimaade yu kuleeyahay wax aan loo fadhin bartaas uu umadii uu soo gudbinayo asoo la og yahay in la badda uu gadan doono asoo la og yahay inuu Soomaaliya xuduudaheeda gadan doono asoo la og yahay inuu sharaf ku dhaxleen ummadda Soomaaliyeed iyo idaacadaha soo fariistay nin weyn oo siyaasi ah oo la og yahay sharafta iyo karaamada ummadda ku dhaxleeyay la socdo yaa intuu media soo fariist yu radiyallahu anhu أميرك ومضى مقرساي رئيس يا صومالي يو وحكة شيء وعاية وسكوت دررينيا وسكوت تاجيا وحن لا جوجين بوبرتا لا سفريسنيا ومضي أنا عبد الشكور أنا مكو أنا مكحسرو ومضي كبرتي نيك كو هذا قيا بعد هيد أنا مقدسة كل جحيو وأنا عاصمة ومضى الصوماليين تاكسي عشورتي ومضى الصوماليين لو نسي نيك دتك كحك سري أصلا سري كي من مال يراد بولا برد شالي baad soo gashay 1994 yaad naftirkaaga soo gashay buula bardiya waxaad ka timid magaraysaa gobolada dhexe yaad ka timid adoo gaari waxaad u soo saarnayd magaalada Muqdisho inaad timaadid waxay kugu qaadatay wiigag bay kugu qaadatay baabuur baad raacaysay hoomay baad ka dagatay loori baad soo raacday adigoo rafaasan oo jajabay yaad Muqdisho soo gashay maadan garanaynin meel guriga meel magaalada soo kullisata aqoon uma lahayn magaaladii baad saad ku soo gashay intii tolkaaga kaaga soo reysay yaa kugu soo dhaweysay يا جوري أسيحتيد بيكو جايد مدرسة كدقتي ما ملانا يقون كلنا تجارت وات كتهريب التو السوداني إنجليز كذو سوقرتي وات كوسو النقطة هذا وين وزير بيكات دقين هذا قبل ليه أو سوماليا اللي قلنا الصين يا الرو سوماليا اللي قد الجيل الرو يا وزير كات دقين وحيبات خالد فانتي ومدي الصوماليات بدك الجرين حافظة دقنت هاي كلية يا ضم رئيسي إلى سوماليا ودنتاي بهذا الكي قاعدوا دقيش حافظة وكذا جنا مقدسه المدرّدي هذا الردي وكأركي وارون نبك اسمعي هدانته حافظة راعي بالله كوبديهين يا نمر إنك اسمعي ودنتاي اسمعي وين أو الصومالي ودن دقنتاي أو عداني يجري يجري لقيه يعني حافظة يا رير عبد الله ودقيهين يا نمر إنك اسمعي ودنتاي مركان أركمين هذا يركل كتاج مركان مثل اسمعي ودن من تسمعين لكن وحاول يكون حداد مقالة حافظة كده بعد أو مقالة ذي أتكتد صومالي وين بدو تجيسا هل كان حد قلت تجيساق هل كان حد قلت تجدارون
daarood halkaa raxan weyn halkaa jareer halkaa soomaaliya dhan baad ugu tegaysa khalad bay ka dhaadhiciyeen degmadii iyo xaafadii u deganaa iyo u maleeyay muqdisho dhan isagoo mikrafoon soo qaatay oo ummadii soo hor istaagay ayuu wuxuu yidhi xamar unukaa leh xamar annagaa iska leh waa lagaa xigaa duqbilow ma imaan kartid cid ku soo dhawaynaysa ma leh waxaa weeye anaa iska leh war xamar 4 milyan oo qof baa ku nool 4 milyan oo qof oo Soomaali ah yaa magaalada caasimadda ummadda Soomaaliyeed hooyada ummadda Soomaaliyeed 4 milyan oo qof baa ku nool waxaa weeye war iskama hayso xamar weyne waxaa degan dadka cadaanka carabta ah xaggaa waxaa degan Soomaali kale xaggaa waxaa degan reer Somaliland xaggaa waxaa degan reer Puntland xaggaa waxaa degan reer Jubbaland xaggaa waxaa degan reer Koonfur Galbeed xaggaa waxaa degan reer Shabeelle Soomaali oo dhan baa ku idin adiguna suuqa xoolaha aragtay afar ilmaadeerada waxaad u malaysay inay suuqa xoolaha Muqdisho dhan tahay war 4 milyan baa ku nool waxaa laga yaabaa inaadan 30 kun gaareen halka markay marayso ninka siyaasiga ee ku fashilmay Soomaali baa tahay ninka siyaasiga ee ku fashilmay Soomaali ee tuu mikrafoon soo qaatay yiri xamar unukaale martibaad ku tahay duqbilow farmaajo martibaad ku tahay hebelow martibaad ku tahay waaskaagi baa ka diiday Soomaali baa ka diiday ku dad kugu sokeeya ka diiday kuwa kii waaski u duceeynaya dawladda soo waaska cayrma ilan hawargidir cayr baad ka tahay hawargidis ma dul saar rag baa wadaniyiin rag baa dalka jecel rag baa dalka u dhintay madaxweynayaal ka soo noqday dad baa markii siyaasiga laga hadlo qabiil u bedeli baasha bugta markaan ninka ka hadlo ee shakhsiga ah wasiirka soo noqday ee badda Soomaaliya gatay markaan ka hadlo in damcaynan dhaliilo in damcaynan ka sheekeeyo oo siyaasadiisa ana la iskare islaama bururi odayaal baa bururi wuxuu ku dhii reer buu wax ka sheegay war reer waxba kama sheegin ninka qabiil ahaan wuxuu u dhashay oo u dhashay qabiil ahaan u dhashay balikaadii isla yaro meeshan sanka farta kula jirto oo musirsan bantuuraya aadiya meeshan ana iskale ardaaga wardaagi duqbilow weeyadi ku fiidso oo joog oo dhageyso haddaad dhageysan kan la iskaga dhacaadiyad عبد الرحمن عبد الشكور إنا مكو حسن ودنبيلها أها دنبيك كقلي أمد الصوماليات العقد كسوقاتي إمارات برعد كسو هجامي صوماليا دولة الصومالية انتهي قواتي لجيبيي لحري حبسي اللجيي فرماجة دنبيلة معها دقبلو دنبيلة معها سياسيين الصومالية دنبيلة يال معها هدي أنا عبد الشكور لقى شاكيو أنا ما كحسن سياسة دي سلا دليله كذي ور هو هذا محي ذيك قليل وروحان رجع محي هاي وذا فر ورنا عبد الشكور سياسي ويدتكو كبحت هل كابو رواينو دليله وأنا جيبو هذا الكيجي بعد نبي دليشان دليله سياسي صوماليين دنبيلها الله حري حبسي اللي جاي صدق لما حبسي كبري إن حلك كمان كريسالي يعني دليله يا soo fariisanaya hooyadiisa koran waxba ka galabsanin yu caayal hooyada waxa ku soo war hooyo way ku dhashay 9 bilood bay caloosha kugu soo waday way ku xanuunsatay wallahi bay noqotay dhiig baa xudunteeda laga gooyay dhiig baa saa uga soo bax maxaad ku caay hooyo hooyada hadaan xanaaq maxaa ku caaya ila ardaa khaldan bad ka tahay rag foorro jiro kaba ay xirtaa markay duqbilo warkaan 3 lugood laan dheero dhalay oo 3 lugood ku taagan way markuu dho rag baa iska foorarsan kaba xarigooda ay xiranayaan ila madaxii baa hoosaadi ila gadaal bay saa u foorran aadiyaad waa ceeb way adoo nin rag waalidka lama caayo ha caayin sheeke oo ragga la sheekayso oo siyaasadda haddaad difaaci kartid ina maka xasan haddaad difaaci kartid waa dambiile lawyer intaad noqotid bal soo galo difaac wuu wanaagsan yahay dheh anna waxaan ku oranay waa tuug waa la soo qabtay waa dambiile waxaa weeyaan badii buu gatay baan ku dhif intaa ku ekow siyaasadda lagu sheegay waa inta siyaasaddu maaha inaad qof ka caysid ama adiga lagu caayo ama hooyada la caayo ma annaga ku baranaadiyaad ku barayno war markay halkaa marayso ina maka xasan ninka badda gatay ingiriiska ceerta ka qaadan jiray la xiray dambiilaha ahaayee la xiray xabsiga la geeyay dawladda Soomaaliya xirtay ila musuqmaasuq iyo lacag iyo corruption iyo tuugnimay ciidanka sharafta leh ee Soomaaliyeed booliska Soomaaliyeed iyo sirdoonka Soomaaliyeed ay u soo qabteen xabsi u geeyeen la xir maxkamadda la keeya soo jeebishan iyo YouTube iyo meel walba ku dirtaa dambigii ka horeeyay khiyaano qaran buu galay wuxuu gatay badii Soomaaliya wuxuu ka gatay Kenya ka gatay uu saxiixay inuu yara aqoon lahayn oo aqoonta ku yartahay oo jahilnimada ku badantay waxaad ku garanaysaa markii la weydiiyay mikrofoonka loo qaatay ee la yiri mudane Cabdi Shakuur war badii Soomaaliya maxaad u gadatay wuxuu ku jawaabay way duuban tahay bara bulshada iyo YouTube iyo Facebook bay ku jirtaa wuxuu yiri anigu ma akhrinin warqadaha
وزير باتاي إلا وزيرك ورقدها وين وتفترا أجاسم ولاي وزير كحجام بولاي وآخرية أو شرحه أو يرى هذا سان وحاويان ويكفي عنتاي إياكم فعنا لا تليال بوسقينين انتو إذا عدي سوفريستي يقولنا ما كحسن وحجري أنا مانا أجين مانا أخرين جاهل نمويان أقون درada هيستوي كيبا ومد هور صعد كيبا ومد هور بودي كيبا قبيل دتك الدفاعي كيبا دتك وحي كليهن ورهير هبل وحلق بشكل ورهير هبل علوم إليه ورهير هبل عقوية هنال بيلين ورهير دو وحبرتي إليه ورهير كان مما تلكره كان الصومالي بوكورتبت صومالي النعري نعضي أو صومالي نعضي صومالي هشيسي نيكا كوفانا يوي 1991 iyo dagaalkii sokeeyay ninka ku faanayo ee abaartii lagu noqdo in dilkii iyo dhici iyo kufsigii iyo ku nasiibsan in lagu noqdo ninka rabo dad baa qabiil ku taageeri oo qabiil xabadka ku qaraacan oo ku soo ordi oo ku caay oo ku bursan bar hadalkayga aad u dhageysta أنا ما كفشل وفشلمي أنا قاعد فشلني Soomaaliya wax ka noqon maayo at least hataa reerka uu wato ama reerka ka waalaya ee horboodi keena mid aqoonyahana keena mid ummadan ka gadma keena mid aan badda Soomaaliya aan gadanin oo Soomaalinimada ku weyntahay keena bal inaan ayno ama la aflagaadeeyo ama la dhaliilo kulay markii la dhaliilo siyaasadda la waa la caayay lagu leeyahay bogto warka aytamaya waa ka hooyada caayo warka aytamaya waa ka caruurta caayo warka aytamaya waa ka isbaah dilo ee ummadan adeerkiis intuu soo fariisto waalid caayay weeyadiyad war halka markay mareys ana ma ka xasan ee lagu qabtay badii Soomaaliya inuu gatay ee imaaraad lacagta ka soo qaatay ee khiyaano qaran lagu qabtay ee ciidanka booliska Soomaaliyeed soo xireen waa dambiile nin dambiile oo la xirayna dalka Soomaaliya waxba ka noqon maayo halka iga dhigina ma ka xasan xaga ay dhigasay odaga Axmed Madoobaha ee adeerkay ahaa ee kismaayo fadhiyay ee dhawaanahan tuutaa u xiray horta maalin dhaweeyta aad buu ii ceebeeyay karaamadii buu naga qaaday sharaftii buu naga qaaday kollay asaga ma ahe protocolkan dhaliilaya ragii protocolka ahaa ee title-ka watay ee odayga protocol baan u nahay dhahay kuwaasaan dhaliilaya kuwaasaa bahdilay waa inuu shaqada ka wada qaadaa waa inuu fiijiyaa waa inuu protocol cusub oo sharaftiisa iyo dignitigiisa ilaaliyo waa inuu keenaa adeerkay maalintii uu ka soo deganayay diyaaradda Garowe ee uu soo dhaweynay ninkii dani ah uu soo dhaweynay suud buu watay madaxweyne weeka oo metelo umada degan Jubbaland nin metelo weeka maalintii la isu yimid ee caleema saarkii la isugu yimid ee kaamarooyinkii oo dhan dadka hayaan ee la isdaawanayo ee nin walba kii ku jifada ahaa uu ku faraxsanaa أنا عبد الشكور بعد من كستو مسكين إسكاها الله صور كقاعدين بهدلنا هنا مكحسن مساكين ماذا بفرماجة مركو قطبيني مسانا وفردي الله وحب بهدلنا الله وحب إلا وحنا ورقيبة عن مقرر ساي هو قبيل بالوضع بهدلك ورقة واسكنا ورانا سادية يا وذاك هذيرك ياها بروتوكول كيسي وحاوي ومدي نوع بين وذاكي ما شاء الله يسوي مذي مدحدي الصوماليات nin walba protocol u soo labisay ee la oranay suud kan dhig kaamirada kuma soo baxo kabahan iska dhig kabaha xiran la oranayay yaa asoo kaba sirwaal kaake iyo kaba sports iska wato yu odagii soo fariistay ciilka iga qabtay iyo xanaaqa naga qabtay iyo ma garanaysaa carada naga qabatay haduu ogaan lahaa si kastoon u dhalina laakiin waa madaxweynahanag si kastoon u dhaliilno oo naga soo horjeedno stiil waa ninka kursiga Jubbaland ku fadhiya weey Faarax Murtiile yaa ka labis qurux badnaa war waxa wiilash yaraay meesha joogaaba ka labis qurux odagiyo sirwaal kaake iyo suud iyo kaba sports watay bartii soo fariisiyeen waan ka xanaaqeenaader wali kursigii baad ku fadhidaa wali madaxweynihii Jubbaland baad tahay wali waxa weeye dastuuri ahaan ada meesha xukum adoo sirwaal kaake iyo kaba sports iyo suud wato yaa soo fariisatay nin walbo reer Jubbaland iyo gawar walbo reer Jubbaland magac xumad u soo jiiday sharaf xumad u soo jiiday karaamad darrad u soo jiiday ceeb iyo bahdilaad baa u soo jiiday halkaas iska soo fariisatay adigii baa khadjilay oo naxay oo yaxyax ragga suud bay wada wateen ilaahu $100 ahaada haduu rabo xataa
إلهي مو $100 هذا حدو ورلعك بدن بعد علايو كسبايو دكاديدي إلى بوركادي يبدو حشي واد قدتها سيد أنجو إن نجير فرحشوا وحجاير يروح إلى واحد ديوان كي جلسة إلا واحد تاريخ ذا جليوي إلا وحجاير حتى إسكاب مجرسة هذا خميس صاحر تادد هذا خميس صاحرته أو خميس وتو برتا يسوفريس يا دامي هذا ديان سروال كاكي يا كباي سبورتس كباي أوروبا إكسايز كلاو تلقلي ورا كباها واي أوران كباها سبورتسك مالها كلال كاه ولا بجرا ويرك كل شيء إلا حرتين رجع سود حكش سكس في عني إن مجرنا ساي كباي يرو دقرو مذو سود سروال سود وحال حرتا وحال معناها بروتوكول كم تاعي مقرنسه النيد الشعب كنيد الله دسو اي مدحوينهودي ku faanaan oo yiraahdaan waka Axmed Islaam waa madaxweynaha nagi kuwa adeerka u tahay sidoo kale tareedaan waa adeerka halkaas fadhiya si kastoon u mucaar laakiin rag uu iska dhiciyaan laakiin aad kaba urayo shaqaskii wato sportski oo kuwii lagu ordayo exercise lagu sameeyay ragii meesha joogan madaxa wada qarxay macnaha liiga soo baxay noo shay kaba waa runad markaad public soo gash sports lama xirto sababta loo kala saaray iskabaha sportska iyo kabaha labiska iyo suudadkiya loo kala saaray waa wax adduunkan qoran oo body language baa la yiraahdaa waa wax jaamacadaha lagu barto oo protocolka waxa loo sameeyay kamid hadaad lagu weyn lahayd hadaad socon lahayd oo meelaha lagu tustusay waxbay ahaan lahayd war madaxdii rag shaarba waaweyn yaa soo dhex fariisatay kabay sports oo sakaski urayo rag iyo dhanba waa laga wada carray meesha بروتوكول كان فيجي تدوض بلود كوارتي فيجي رجاس وين نعيبين جبلان بيدلي شقada ka wada qaad shaqa joojin ku wada samee waa inaad fire wada tiraahdaa waa inaad fire u wada qabataa tiraahdaa you fire haddaan anigu gartay maxaad iga qaban weysanaa tiraahdo way waana borotokolka dib ugu noqotid waanaad magaraysaa nidaam qurux badan la timaadid way axmedow halkaas ولا بسكيسو وي كهرمين ولا شيء سو بري وصل إيه عيبين إنه مقرر ساي مدال كلو السويمد وصل إيه عيبين هالك هالك مرش مدحوينها صوالي رضي الله عنه مدرب محمد عبد الله فرماجو إيو مامل قبل دي إيو مدحدي هورتي دلك صوماليا يا وذا فريست ولا عافيي والله وذا هضلي وراق إيو فعلان إيو قروح إيو الناعو قروح بدن بالله سودا تلمامي أولا يري هورها الله سعود مدحوينها الصومالية هي مدحوينها مامل قبلات كجبلان si toos oo maysan wada hadlin laakiin waa la kaftamay adeerkay waxa ka muuqato adeerka Axmedow waxa ka muuqato rabitaan Soomaalnimo inay Soomaali hor u socoto in ma garanaysaa isbedel Jubbaland ka dhaco madiidano laakiin la taliyaashiisa qolqolooyin qabiil uu qaaday oo qabiil ka dhaadhacsan baa ka yara waalayo laakiin odaygu ma sha Allah wuxuu sheegay oo barta ka sheegay inuu ogol yahay inay doorasho dhacdo inuu rabo inuu gaarsiiyo sida Puntland ka dhacdo kale inuu Jubbaland gaarsiiyo uu rabo legacy qurux badan oo fiican inuu ka tago ayuu rabaa aad iyo aad legacy qurux badan oo sharaf leh sida Cabdiwali Gaas iyo magaranaysaa madaxdii Puntland soo martay sidoodii oo kaleeto in asagana uu ka tago rabaa madaxweynaha waa la fahmay waanan soo dhaweynaynaa bursiga ee la bursanayay iyo tooshka faraha badan in ku heynay xogo waa laga yara qafiifinaya waana soo dhaweynaa adeer macaana isbedelka waa wax aanan la qarin karin weeye Soomaaliya isbedel baa laga rabaa isbedelkaasoo gaarsiiyo Soomaaliya meesha laga rabo oo ah inay Soomaaliya cageeda ku istaagto madaxdeedana iskaraameeyaan taas weeye isbedel doonka Jubbaland haniyad jabina mudane Axmed Maxamed Islaam uu ogolaaday inay doorasho ka dhacdo Jubbaland waana soo dhaweynaynaa taayade laakiin joojin mayno dhaliishii iyo wax sixidii aan Jubbaland ku wadnay joojin mayno way soconaysaa ilaa aan ka gaarno maalinta doorashada inkastoo asaga hadda uu rabo in si wax ugu saxmaan oo ugu hagaagaan ilaa December in la gaarsiiyo annagu taa waan ka yara cagjiidaynaa mana ogolin in la kordhiyo doorashada wax lagu daro ma ogolin waxa aan rabno waxa weeye doorashada inay waqtigeedii ku dhacdo maalintii loo qabtay ee dastuurka uu sheegayo inay Jubbaland doorashada ka dhacdaan rabno insha Allah haduu leeyahay bil iyo 2 bilood wax badan ma waxa weeyaan insha Allah haduu marka ku bishaareysta mudane Axmed Maxamed Islaam waxa weeye si arintaasi uu soo afjaro
oo arrintan ugu qanciya dowladda Soomaaliya dhawaan wuxuu u duuli doonaa magaalada Muqdisho oo halka lagu soo dhaweyn doono oo si kafoole asaga iyo madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo ay u wada fariisan doonaan si la isugu afgarto doorashada qaabka ay u dhacayso insha Allah hadduu Ilaahay intaana waan ka yarada jirnaa waan idin salaamaya waa waaski duqbalow ahaa noolaada idin leeyahay in cagjarow dacwadaadana way soo gaartay laakiin in adeer kabanay ina si toos aniga ii soo baartay aad baad u khaldan tahay laakiin hor baa loo soconaya marnaba dib u noqon meena kulay mar hadalkayga bilawgiis hor baa loo soconaya marnaba dib loo noqon maayo aad iyo aad baa idin salaamaya waaski duqbalow ahaa Soomaaliya ha guulaysato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi